السلام عليكم جماعة وناكسن صاحب يال سو دhowaada maanta waxaan sharxi doonaa filin aad iyo aad u xiiso badan laguna saadaalinayo mustaqbalka kaas oo lagu magacaabo Idiocracy haddaba waa kan filinkiye daawo oo taxadarna filinku wuxuu ku bilaabanayaa iyadoo la joogo sanadka 2005 waxaana la isugu yeerayaa dhammaan saynisyahanada caalamka waxaana laga rabaa in laga hortago shanta qarni ee soo socota waxa dhici raba iyo sidoo kale sidoo noqonayo caqliga bini'aadamku cilmi baarayaashu waxay sheegeen in dunidu ay mari doonto marxalado kala duwan oo halisa dhan kale dadka badankooda waxa lagu sameyn doonaa cilmi baaris kala duwan dadka cilmi baarista lagu sameynayana marba marka ka sii dambaysa aad ay markaa u sii tira badnaanayaan waxaana layna tusayaa in la doonayo in cilmi baaris lagu sameeyo kaasoo magaciisa lagu magacaabo Gio meesha cilmi baarista lagu sameynayo waxay ku taalaa dalka Mareykanka General Callan wuxuu sharaxaad ka bixinayaa Gio oo laga soo dhaxushay ciidanka waxaana la rabaa in lagu sameeyo cilmi baaris warbixinta soo baxday waxay noqotay in Gio uu yahay qofka ugu caqliga badan aadanaha wuxuuna noqday qofka ugu mudan in lagu sameeyo cilmi baaristan dhan kale qorshahan waxa ku weelaysa gabadh lagu magacaabo Rita iyadana waxa laga soo dhaxushay ciidanka dhexdiisa waxa kale oo soo raaca wiil kale oo lagu magacaabo Upgrade dhammaantoodna waxay ku qanceen qorshahan Gio iyo Rita waxay markan sugayaan cilmi baarista waxa qoonana isma laha labadoodu ismana fahmayaan waxayna markan ku qasban yihiin inay isbartaan dhan kale waxa la gaaray xilligii la fulin lahaa qorshaha Rita waxay markan ka xanaaqsan tahay Gio hadallada neecda ee uu ku dhahayo ugu dambeyn dhakhaatiirtu waxay bilaabeen inay systemka ku xiraan Gio iyo Rita laakiin dhakhtarkii cilmi baarista waday ayaa isla markiiba la xiray halka Upgrade isna lagu daray dhakhtarkii oo xabsiga la geeyay inta kadib waxa la soo xiray qolkii ay ku jireen Gio iyo Rita maalmo kadib dhismaha oo dhan ayaa la dumiyay waxaana muuqata in qorshihii la kansalay sanado badan ayaa ka soo wareegatay waxaana la soo gaaray sanadka 2505 koox kale oo cilmi baaris ah ayaa cilmi baaris ku sameynaysa xayawaanada dhan kale dunida oo dhan ayaa isu bedelaysa mid burbursan Gio ayaa ku soo dhacaya guri kaasoo leeyahay nin lagu magacaabo Farito waa nin doqona wuxuuna ku fadhiyaa kursi musqushiisa wata calaashaan kursiga iyo musqusha ayaa isugu dhagan Farito intuu Gio qabto ayuu ka soo tuurayaa banaanka Gio ayaa raba inuu ogaado waxa dunida iska bedelay dadka badankooduna waa wada doqomiin afka ay ku hadlayaan ma fahmayo isagu in yar oo kamid ah iyaga ayaa ku hadli kara luqadda Ingiriiska dhan kale tiknoolajiyadu wali way horumarsan tahay inkastoo badankeedu ay luntay Gio ayaa si lama filaan ah u arkaya dhismo weyn oo hortiisa ah kaasoo ah isbitaal wuxuuna gelayaa dhismihii markuu gudaha u soo galay wuxuu ogaanayaa in dunida ay wax badan iska bedeleen wax walba oo markan jooga aysan ahayn sidoodii hore xataa bini'aadamku uu yahay bilaa caqli waxaana la ogaaday inuusan Gio lahayn calaamadda ay wada leeyihiin dadkan meesha jooga taasoo ah calaamad tattoo ah isla markaana uu iskaga soo baxayaa goobta wuxuuna imaanayaa meesha biyaha laga cabo mise biyaha ayaa iyaguna kalarkoodii isbedelay kadib wuxuu soo baxayaa banaanka wuxuuna la kulmayaa nin bilaa caqli ah kaasoo lagu magacaabo Bendejo wuxuuna yaabay markuu joornaal ka arkay inta ay taariikhdu marayso isla markaasna uu niyad jabayaa si kastaba ahaatee dunidu waa mid burbursan Gio wuxuu ku soo laabtay ninkii bilaa caqliga ahaa ee Farito wuxuuna ka wareysanayaa sida ay dunidu isu bedeshay kadib Gio ayaa isna uga sheekaynaya sida uu nool yahay ilaa 2005tii Farito ayaa la yaabay sida ay ku dhacday isla markaana Gio ayaa iskaga soo baxaya wuxuuna imaanayaa banaanka si uu la qabsado dunidan cusub wuxuuna fiirinayaa dhinacyada wuxuuna rabaa inuu ogaado wax kasta inta kadib wuxuu imaanayaa Shaleemo isla markiiba waxa qabanaysa ciidanka booliska waxaana nasiib xumo ah qofka ciidanka u soo tilmaamay waa saaxiibkiisii Farito ama ninkii bilaa caqliga ahaa ugu dambeyn Gio waxa la keenay xarunta tattooga si loogu sameeyo calaamad isla markaana waxa la tijaabiyay caqligiisa balse waxa loo taxaabay xabsiga inta kadib Gio wuxuu isku dayaa inuu khiyaameeyo askarta maadaama ay bilaa caqli yihiin wuxuuna isku dayaa inuu ka baxsado wayna u suurtagelaysaa marka uu soo baxsado kadib wuxuu imaanayaa Farito oo ahaa ninkii markaa soo mishimay isagoo ka dalbanaya inuu garab ku siiyo sidii uu heli lahaa saaxiibadiisii Rita taasoo ay ka wada yimaadeen 2005tii muddo kadib nasiib wanaag way ishelaan Faritana wuxuu bilaabay inuu magaalada ku wareejiyo labadoodii si ay ula qabsadaan meeshan balse Rita kuma raacsana iyaga halka Faritana uu iskaga tagayo isagoo raacaya tareen balse goobtii waxa yimaaday ciidamada booliska mar kalena waxay qabteen Gio waxaana la geeyay xarunta aqalka cad waxaana u imaanaya madaxweynaha kaasoo lagu magacaabo Camacho waana ninka ugu caqliga badan marka laga reebo Gio wuxuuna weydiinayaa halka uu ka yimid habeennimadii madaxweynuhu wuxuu qabanayaa shir aad u ballaaran kaasoo dadka uu ku barayo Gio waxaana laga daawanayaa dhammaan tiifiyada oo dhan maalinta xigta waxa la tijaabinayaa caqliga Gio si looga hortago cunto yaraanta ka jirta adduunka balse Gio arrintaas kuma raacsana wuxuuna garab weydiisanayaa saaxiibkiisii bilaa caqliga ahaa ee Farito
si ay meesha uga baxsadaan isaga iyo saaxiibadiisa Rita. Ugu dambeynna meeshii way ka baxsadeen. waxaana layna tusayaa Rita oo tijaabinaya caqligiisa isagoo sameynaya qariirad. wuxuuna rabaa inuu ka garab siiyo saaxiibkii inuu meesha ka baxsado. nasiib darro, Gio iyo Rita waxaa qabtay ciidamadii. waxaana la keenay xarunta tijaabada. Gio ayaa loo dhiibay 2 koob si loogu tijaabiyo caqligiisa. waxaana lagu dhahay sharax ka ku haboon in wax lagu beero. markuu gartay, kuwii kale la joogay ayaa la yaabay. dhan kale, aqalka cad waxaa soo weeraray tiro dad ah, halka Gio uu ka daawanayo daaqada. dadkuna waxay ka soo boodboodayaan albaabada. Gio ayaa la yaaban caqligooda. beertii uu beeray ayaa soo bixi rabta, waxaana u imaanaya wariyaal tiro badan kuwaasoo raba inay wareystaan. habeennimadii waxaa tartan lagu qabanayaa goobtaas ay isugu yimaadeen dad tiro badan. tartanka waxaa lagu tijaabinayaa qofka ugu caqliga badan aadanaha, balse nasiib xumo lama helayo qof caqli leh. dhan kale, Rita ayaa dharka iska bedelaysa, waxaana u imaanaya Farito. wuxuuna u sheegayaa in Gio la geeyey goobta tartanka. Farito iyo Rita waxay soo aadeen dhinaca Gio. inta ay jidka kusoo jiraan, Rita ayaa arkaysa in dhirtii uu beeray Gio ay soo baxday. ugu dambeyn waxay imaanayaan goobtii. Rito ayaa wariye ka iibsanaysa kaamaradiisa si ay sawiro uga qaado dhirtan uu beeray Gio, dadweynahana ay ugu soo bandhigto. markay hawsha ka dhamaysato, kamarada waxay ku dhex tuuraysaa beerta dhexdeeda. dhammaan tiifiyadana waxaa laga daawanayaa dhirtii uu beeray Gio. nasiib wanaag, Gio ayaa loo aqoonsaday qofka ugu caqliga badan aadanaha. waxaa la gaaray habeennimadii. Gio ayaa loo sameeyey xaflad u gaara. si kastaba ahaatee, Gio wax farxada kama muuqato marka uu xafladda joogo. maalinta xigta, Gio ayaa loo doortay madaxweynaha, wuxuuna jeedinayaa khudbadiisii ugu horreysay, taas oo ku ammaanay ilbaxnimadii hore. wuxuuna kaloo rajo ka muujiyey in bulshadina ay maalin uun ku soo noqon doonto sidoodii hore, caqligooduna uu soo noqonayo. dhammaadka filimkana waxaa layna tusinayaa iyadoo ay ka soo wareegatay sannado badan. Gio ayaa guursaday Rita, waxayna u dhashay 3 carruura. carruurtaasoo ah kuwa ugu caqliga badan adduunka. filimkiina saas ayuu markaa ku dhammaaday. haddii markaad xiisaysid muuqaalada noocan oo kale ah, fadlan janaalka subscribe saaro, sidoo kale muuqaalkan lay garee si markaa dad badan uu gaaro. waana kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan. intaan muuqaalka xigo ku kulmayna waxaan kaga tegayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.